ururka dhalinyarada Urad Unit Organization oo ka dhisan magaalada Hargeysa ayaa habeenkii xalay kulan casho sharaf u sameeyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro kulankani waa mid siyaasadeed loo soo agaasimay isla marhaantaasna ay ka soo qayb galeen uqaal waxgarad haween iyo dhalinyarada ururka Urad Unit Organization wareyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi Yacquub Cabdilaahi Cumar waxaana uu si ballaaran u faahfaahiyay ujeedada ay kulankan ka leeyihiin iyo waliba waxyaabaha ka dambeeya hadaladiisina waxaa ka mid ahaa kaasoo ururka dhalinyarada Urad uu sameeyay sharaf oo kaasoo ah in ay caaw u gulxareynay xisbiga wadani sida ay ugu soo bilaayeen ururka dhalinyarada Urad waa qoyaan iyo qudjo isku xidhan kaasoo dhawaan hadii la yiraahdo xisbiga geesta kale waxa iyaduna halkaasi ka hadashay Marwe Faatimo Siciid oo kamid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana ay ka sheekaysay abka iyo hanaanka xisbigaasi uu soo dhaweynayo dhalinyarada waxaana hadaladeedii kamid ahaa waxa aad iyo aad runtii ugu farxay runtii xisbiga anigaba waxa soo jiitay waxa weeyaan sida wanaagsan qaabkooda uu bisan yahay sida wanaagsan ee ixtiraam kale ee qof walba loo dhaqmaayo sida wanaagsan ee aanu maxaa gudoomiyuhu أنا تذكر إسكجوا ويني قدوميه إنك هو كلام بويهاي حتى هبينو تكتب حتى معلوم تكتب بألباب كيس اسمه فرني هاي ما أرانا أيام ما أنت بيسي بان هاي إسقى بقولش وتاجني هاي وبقول قفو تاجني هاي وقف كليان كيابه كم أرانا أيام تبى يسوق هاي هذا تيجي صانعه فضل مقارنة يا صفر يسوق وحقوا مين يسن عضب حسن ونظام كتر كتر يا سيسار دويدو كون جودين هذا هو هيسيس ميت كمية وحكو شرع ميكادو تهيدني يحاج صور دقي ساداش كوتري سنتي ستيمون بركة تواصل نوت قاعدين هنا كورما هيك مهارات تواصل قاحد شو قاعد تو قاحد كله المكان يهربسين مرة ناري مرة أنا ولا كواسان هاي لكن توقف كله قصة معه قال ما يتكوي ما تقولني أوه سو كي أروسها كنسة أسمو نقوليه مركب عليه ده حوالي قف كبير وبنتاه زي حواش يسكتوا تدخلوا حق مستمر ونتايل كلا الرجال لكن تيجي تاكل قف الدلال بقى فرن إنه حسحاب فرن إنه غلط كيسكال عليه فرن ugu dambeyntina waxa hadalka soo xidhay isla marhaantaasina munaasabadaasi soo gunaanaday gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaana uu ku noqnoqsaday sida mar walba xisbiga wadani uu heeganka ugu yahay dhalinyarada dalka oo ay doonayaan in ay horumar gaarsiiyaan hadiiba uu yiri ay ku guuleystaan kursiga dalka looga taliyo waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan maaqlayaa dhalinyarada martiqaadka inoo samaysay caawa munaasabada wanaagsan dhalinyaradu waxaan jecel lahay inay noqdaan qodobdhaxaadka xisbiga wadani haddii ilaahay ka dhigo waxyaabaha aynu axsaabta u samaysanay waxaa ka mid ah inaynu qabyaaladda kaga baxno laakiin weli mujtamaci waxaan mina taanjarayan kaga baxayn in kusii jirnaayo markaa maalin baynu sii tuurayna haddii ilaahay ka dhigo dhalinyaradu warbufiska ay soo jeediyeen runtii dee qayb mujtamaca un kamida wey reerku hadda sidaynu u dhisannahay marka la eego waxaanu idin ballan qaadaynaa un horta ballanqaad baran idin samayn mayno Cabdirasaaq Maxamed Koronto Somaliland Space Channel Hargeysa